waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada aad u qabsaday muuqaal la xiriira gabadha lagu magacaabo Queen Canab. meelaha ugu badan ee muuqaalkan la wareejinaya ama lagu arkay waa barta Facebook iyo sidoo kale barta TikTok oo ka mid ah meelaha sida weyn Soomaalidu ay u isticmaalaan. gabadhan ayaa ku sugnayd sida muuqaalka ka muuqanaysa goob musqul ah, isla markaana ay ku qubaysanayso wax dhar oo ay xiran tahayna ma jiraan. sidaa daraadeed muuqaalkan ayaa u muuqanaya mid gacanteeda si fudud gabadhan kaga baxay. warar iskhilaafsan ayaa xaalkan ka soo baxaya, waxaana jira warar tilmaamaya in muuqaalkan ay ugu talagashay isla markaana ay u dirtay wiil xiriir jaceyl uu kala dhaxeeyo isla markaana jooga mid ka mid ah wadamada qurbaha. sidaa daraadeedna wiilkaas uu baraha bulshada muuqaalkan soo geliyay. waxaa sidoo kale jira in muuqaalka gabadhan moobilkeeda uu ku kaadsanaa, sidaa daraadeedna gabdhaha asxaabteedaha ay baraha bulshada muuqaalkan soo geliyeen, sidaasna muuqaalku ku noqday mid ku faafa oo baraha bulshada siyaabooyin kala duwan dadku ay isugu diraan. waxaan kaga digaynaa inaadan ku daysan kuwa muuqaalkan sii sheergareynaya ama ku farxaya jabka ama dhibka gabadhan soo gaaray oo ceebteeda caawa lagu faafinaya baraha bulshada. Queen waxay ka mid tahay gabdhaha sida weyn u isticmaala barta TikTok. halkaana waxaa jira muuqaalo hore ay usoo dhigi jirtay, waxaana jira sidoo kale fariimo bulshada ciwaankeeda ku xiran ay u gudbi jireen, kuwaasoo la xiriira inay wacyigelin gabadhan u jeedi jireen oo la xiriirta inay is asturto isla markaana ay joojiso muuqaalada la xiriira niikada amaba meelka dhaca ku ah diinteena Islaamka. balse caawa arrintan waxay ku noqotay gabadhan fajac, sidoo kalena ma aysan soo gelin baraha bulshada ee caanka ay ka ahayd, waxaana tan ay ku noqotay niyadjabkii ugu weynaa ee nolosheeda iyada soo gaaray, maadaama muuqaal ay wada qaawan tahay caawa lagu faafinaya baraha bulshada. ma aan jeclaysan inaan halkaan idinkugu soo gudbino muuqaalkaas oo ah midaan indhaha u rooneen, sidaa daraadeed waxaan kaga digaynaa inaadan qayb ka noqon dadka sii faafinaya muuqaalka gabadhaasi, kana qayb qaado kuwa u ceeb qarinaya isla markaana niyadda u dejinaya, maadaama qofka aadanaha uu qalad uu ka dhaco. isla markaana gabadhan weli iyadoo aysan shaacin muuqaalkan sababaha gacanteeda uu kaga baxay. hase haatee muuqaalka ayaa u muuqanaya Queen Canab oo musqul ku qubaysanaysa isla markaana wax dhar aan wadan, sidoo kalena muuqaalku u muuqanayo mid ay xilligaasi raalli ka ahayd. waa xilliga laga duubayay amaba iyada gacanteeda ay ku duubaysay, waaba haddii moobilka meel dhinaceeda ay saaratay. arrinta ugu hadalhaynta badan oo dadka siyaabooyinka kala duwan caawa ay u falanqeynayaan waa dhacdada ama xaaladda gabadhan ay la kulantay oo ah mid dad badan ay ka fajaceen, maadaama xaaladda soo gaarta ay tahay mid murugo badan ku reebi karta mustaqbalkeeda ama aayaheeda dambe. waxaa suuragala in muuqaalku uu jiri kara qof iyada ay islahayd waad ku aamini kartaa, qofkaasoo sabab u noqday in iyada ay isku dhacaan, sidaa daraadeedna qofkaasi uu soo geliyay baraha bulshada. hase haatee waxaa dhici karta sidoo kale in si fudud muuqaalkan ugu kaadsanaa moobilkeeda inay ka dirsadeen gabdho kale, sidaa daraadeedna lagu soo geliyay baraha bulshada. xaalka sida uu doono waa u noqon karaa, labadaas dhinacna waa loo fasiran karaa, balse gabadhan xaaladda soo gaartay waa mid aad garab ku siin karto inaadan qayb ka noqon muuqaalkaas hadduu ku soo gaaray, inaadan sii sheergareynin amaba indhaha muuqaalkaas aan u rooneen aadan ka qayb qaadan kuwa ku sii faafinaya baraha bulshada.